halkan ay ku xareysan yihiin arday aad u tiro badan oo macallimiin loo tababarayo ayaa waxaa soo booqday wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ayaa halkan ku soo booqday ardayda ku jira kulliyadda tababarka macallimiinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo ah gabdho iyagu loo tababarayo in ay macallimiin ka noqdaan dugsiyada dalka wafdigan wasiirku waxa uu soo kormeeray qaybaha guud ahaan ay ka kooban tahay kulliyadda tababarka macallimiinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo baahiyaha iyo qabyaha ka jira la dhameystiri doono muddooyinka soo socda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland subaxdii hore ee saaka waxa uu booqday dugsiga 26 Juun ee magaalada Hargeysa waxaanu mid u dul istaagay kalaasida ardaydaasi ay ku jiraan isla markaasina waxa soo dhaweeyay maamulka dugsiga 26 Juun maanta halkan dugsiga sare 26 Juun waxa martay noogu ahaa wasiirkeeni cusbay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo ina soo booqday sidaa darteed qaamo furan baynu ku soo dhaweynaynaa annagoo fulinayna amarkii wasaaradda ee ahaa tirada ardayda in la dhigo markaa sidaa darteed waxaan ku arjiskaraynay tiradii ardaydayadii sida aanay waxbarashadii iyo aanay noo kala dhantaalin markaa sidaa darteed waa form 4 ardaydan imika macalaabkii waxaan ka dhignay class teeramkan inta hadii la yiraahdo ka halkana store baa halkana iyo weyn oo alaabta lagu xareyn jiray oo markii hore musqulo loogu talagalay marka kaasaan isleenay inta fasax hadii la yiraahdo hadii wax loo helo ad banaysan si aan laabka ma garanaysaa aan noogu banaanaado qorshahayga ayay ku jirtaa waa mahadsantiin tafadal ya saacad waa sabad marka ilaa ay teesag bada labiyo wax 3 block ha wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa ardayda ku jirta dugsiga sare ee 26 Juun waxa uu dardaaran hoga tusaaleyn iyo tusaalaba siiyay ardaydaasi isla markaasina waxa uu kula dardaarmay in ay ilaashadaan sharaftooda iyo dhamaanta dugsiga wasiirku waxa uu kula dardaarmay ardayda dugsiga sare ee 26 Juun in ay ilaashadaan qalabka iyo hantida isla markaasina ay tahay mid wareegta ah oo ardayda ka dambaysa ay manaafacaadsan doonto ma sha Allah tabarakallah qofka subaxa hore soo kaca ee dadaala wadinka arkay waa aabayaashin iyo kaba waaweyn qaarkood soo markaysan idinka la diin dadaalaya waxa la dinbaraya noloshiina kor loo qaadaya waxa la ka fikirayo markii aan salaam maamulo waxay ugu bilaabay ardayda xaafadu aad buu farbadan yihiin nambarka ziyaada ah waxaan u baahanahay inaan kordhino fasaladii iskuulka wax kale ugu bilaabin yaa dadku isoodik baad dantiini igalamu hadlin waxa saajira iyo mushaharka nagu yaray iyo duruufo yar oo shakhsi xataa ima weydiin maslaxadii ummaddu i weydiinay yaadero warkiisa marka saas la idinka fikraya idinkuna saa u fikirtaan hantidan qaranka haysataan ee kuraastan iyo miisaskan wala iska dhaxlaa buugaagtan wala iska dhaxlaa waxa la iska dhaxlaya intaas oo sanadood wala iska dhaxlaya dibadda waa maxay adigii baa jooga waxa laga yaabaa walaalka iyo walaashaa inuu sanadka dambe soo galo sida lagu socdo ugu dambeyn waxa laga yaabaa dhamaantiin inaad kaga wada baxdaan iskuulkiidii hoosaas maxaa kale la doonayaa ilaahay idinkii marka imtixaanada baastaan ee qof waliba mustaqbalkiisa iyo ama jaamacado ama shaqo kala galaan haddana inaad xasuustaan iskuulkiinii soo maaha idinku soo taa ku fikir maysaan ya inaad ubadkiina walaalihiin iyo kuwa idinku dhashaanba haddii ilaahay idinkii aad u dhigtaan wax ka fiican waxa maanta hayna soo maaha waad mahadsantihiin adeer maamulaha dugsiga 26 Juun ayaa wasiirka wasaaradda uga warbixiyay baahiyaha uu dugsigani qabo iyo ardayda ay hayaan saacad wasiir qaamo furan baan ku soo dhaweynaa dugsiga sare 26 Juun waa dugsi run ahaantii maamul iyo macallimiin iyo ardayba aad isku xidhan akhlaaqdiisu wanaagsan tahay nadaafadiisu wanaagsan tahay dadaalayo oo maqranayay isku dayayna waajibkii qaranka ay gutaan marka waxaan jeclahay dhibaatooyinka noogu weynana haysta inaan ku sheegno imika dhibaatada ugu weyn ee naga haysta waxa weeye baahidii dadweynaha xaafadda ku yaalay ee dugsiga imanayay iyo weelkayagii ayaan isleeyahay shaqo isku lahayn sanadka maanta hadii awal waxaan qaadan jirnay 5 class of form 1
anoo ugu talagelina dee inaanu inta naga baxda uun buuxino waxay nagu khasbeen inaanu qaadano 12 class markay dhaqaaqi waayeen ay tigi waayeen shantii saddex cishaan ku buuxinay shantii class inoo banaanaa ayaanu ridday war maxaynu yeelnaa gelkii dambaan uga dhignay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii waa muuqaal wanaagsan aad u qurux badan runtii waxaaba la dhacayba awlaadda dhaqan xumo aanay ka muuqan timahoodii haddana kontaroolka waalidnimo iyo hayntaad haysaan muuqaal quruxsan baa ka muuqda waxbarasha ka muuqata labadii baahiyood idin sheegtay midna waa tii fasalada kordhintoodii guddoomiyihii waxbarashaduna waxaa ku daray midna waa farnijarka iyo buugaagtii ta ugu weynee annaga naxanibaysa runtii waxa weeye waa barshadka dowladnimada taasa waxay keentay runtii culays badan ilaahay idankii